qad ay ugu dhow yihiin magacaas ugu dhow yahay in baarid lagu sameeyo marka tusaalaan anagu soo qaadanaynaa midaal ahaan qaybaha aanu helay in luqadda oromada micni waxa weeye uu ku jiro waxa kamid ah midalan bidawaaq barwaaq tagaalwaaq jidwaaq xamarwaaq doorwaaq diintiwaaq dardaarwaaq siinwaaq siwaaq uroon caabudwaaq cigwaaq cidiwaaq gumarwaaq guddoonwaaq gudwaaq gacalwaaq kaalwaaq midwaaq miskiinwaaq midiwaaq waaqroon waaqbari waaqle waqantiile waq ujire warwaaq waqmaash waaq mahadalle amartiwaaq isxijiwaaq iyo wixii la halmaala waa magacyo tiro badan oo kulligoodna waa ku dhamaanaya waa magacyo tiro badan oo ama gadaal waaq kaga dhamaanaya ama dhexda uu kaga jiro ama uu ku bilaabanaya magacyada markii magaca waaq la micni gaarkiisa loo taago luqadda oromada ayaa asal ahaan alle ayay u isticmaashaa ereyga waaq marka taasi waxaa la dhihi karaa xiriir yaa jiray xiriir xilliga magacaasi uu baxayay iyo goobta uu ku baxayay iyo luqadan micni waxa way meesha ka muuqata xiriir inuu jiray ayuu arintaasi cadeynaysaa qaybta labaad aan isleeyahay wuxuu u baahan yahay fasir oo Soomaalidu sidii u dhan tahay dadka waliba maay iyo maxaa tiri labadaba marka waxa weeye magacyo laga helayaa misaal ahaan buutureen barsuug bees tiinle tagaaleen jambeel jarjiile xaguuga xaadow dacfaraad dawaay raadamiir rambade solosome saxawle shurbel shishoore dhidhiin dhagadhaagte ciridire cindif gutaafiilo goshoshoor gabooleen faramage faqoonle filku-aag furkash buwaaxo qoldho kaanti kooge lamyalam luguun moolikaal muugo nidiq nabidoor wagarsiiye wacweyteen hajiijle hayaama yaaqusniin yaaqdhaale kuwana waa magacyo kale oo tiro badan oo weliba qayb yar bay waxay ka yihiin inta hadda la hayo intaa way ka tiro badan yihiin boqolaal bay gaarayaan intaase waa in yar oon soo qaadnay oo tusaale ahaan aan u soo qaadnay magacyadan markaa Soomaaligii macna way ku sameyn waayeen luqadda Carabigana macna way ku sameyn waayeen tii Laatinkana macna way ku sameyn waayeen marka insha Allah taa waxaan u daynaynaa dadka ku takhasusay afka ama luqadaha af qolka la yiraahdo yaan u daynaynaa insha Allah haddii la yiraahdo bal qaybta saddexaad ama qaybta labaad taasi waa isku hal qayb oo magacu waa asalkii waa 10 fac ilaa 15 fac wixii ka koreeya adoo 10 fac wixii ka koreeya waa 10 fac wixii ka koreeya oo scale-ka qaybta ugu koreysa waa Soomaalidu markaa ma kala leh qoys uu ku gaar yahay waa wax Soomaali weyn meel degtay qof walba Soomaali u galay wax walba Soomaali magacyadan cid walba oo Soomaali ah way ku jiraan waxa cid uu ku gaar yahay total mid waxa ma jiro qaybta labaad magacu waa magacii markii uu Soomaaliyoobay luqadda Soomaaligu ay saldhigatay waxa la bilaabay inay dadku luqadooda ay kula magac baxaan luqadooda inay kula magac baxaan waana magaca Soomaaligu meesha ugu xoog badan yahay ama ugu tiro badan yahay meesha ugu tiro badan yahay weeye taasina waxa weeye inta badan waxa ay keeni ku bixi jiray magacu kolba xaaladda qoyska isaga ah uu ku jiro ama hooyadu xaaladda ay ku sugan tahay ama qoysku xaaladda uu ku sugan yahay ama bi'adda iyo atmosfeerka markaa micnaheedu reerkaasi uu ku dhaqan yahay ama deegaanka uu ku dhaqan yahay
iyo waxa micnihi ka jira yaa magaca bixitaankiisa yaa saameyn ku yaa kulaha waxaan markaa soo qaadanaynaa magacyo gaara oo asal ahaan Soomaali ah oo siiba gabdhaha oo kale marka la rabo gabadha in wax alla waxa micnihi waxa weeye nusqaanta iyo wixii ceeb ku keenaya gabadhnimadeeda in micnihi waxa weeye inay ka dharlaadahay in la tilmaamo marka la rabo magacyo noocaas oo gabadha lagu koolkooliyo oo miisaankeeda iyo qiimaheeda amaan dheeraad ah yani waxa weeye insha Allah soo qaadanayna magacyadaas hadda way suuleen waxaa ka mid ah khaladla gabdhaha waxa loo bixin jiray khaladla salugla ceebla cawrala saxarla baahila calawla ciila hagarla dhibla gefla dhammaan magacyadan waxay tilmaamayaan waa magacyada Soomaali kulligood la'da u dambaysa waa diidmo waxaa la diidayaa magaca ka horeeya ya inay gabadhu in wax way tilmaan u tahay midalan gef la magac waa murakab والله magac oo laba erey isu tagay oo magac noqonaya kala isu geeyo waa compound wuxuu naano meesha isu ka yiraahdo waa magac micnihi laba magac iska saaran marka gef la gabadhan wax gef ay leedahay male saxar la wax saxar ay leedahay male ceeb la wax ceeb ay gabadhaasi leedahay male saluug la gabadha wax lagu saluugo oo lagu diido inaa habeeraatay maarto waxa weey malaha khalad la gabadhaas wax khalada oo ay leedahay ma jiro cawrala cawra la marka saasoo noqonaya ya baahi la marka waa khalad la saluug la ceeb la cawra la saxar la baahi la calawla ya calaw male wax calaw ah male biyo markay qasan yihiin gududan ha wasakh yaha wax wasakh oo gabadha ay wax micni calaw ay leedahay inuu habeerato magac amaana way marka hadda magacyadaasi totally way ka baxeen magac Soomaaliga gabadha ambara la dhihi jiray caban baa la dhihi jiray ya waxa weeye magacyo tira badan oo magac Soomaali ah yaa loo bixin jiray magacyadaasi way tirtirmeen dhinaca ragga ama wiilasha midalan keenadiid qaybdiid riixdiid gamadiid faqdiid taladiid xildiid saxardiid reendiid baylahdiid hildiid magacyo noocaas oo ayagana tilmaamaya sidii oo kale laba erey oo magac marka magaca qaybta hore ayuu wiilkan micni waxa weey ama ilmahan markuu baxayo iyo micni waxa weey laga nafiinaya reen male wiilkan ya qayb ma ogola riix ma ogola gama ma ogola faq ma ogola tala ma ogola xil sida micni waxa magacyo saani marka waxay soo saareen waxa xidida saxar ma ogola reen ma ogola baylah ma ogola hil in dusha laga saaro micni waxa weey ya oo dusha laga raro ma ogola marka magacyadan magacyo tira badan oo aan la soo koobi karin magac Soomaaliga ah sharmaarka kamida guuleed baa kamida warfaa baa kamida warsama kamida culuw baa kamida magacyada micni waxa weeye iyaga laftigoodu waxay lahaayeen qaybo ay magacaas ay ku kala baxo magac micni waxa weeye midalan ilmuhu marka uu madow yahay oo kale ya amra magacyadaas intaan ka bixin magacyadaas waa magacyo qof walba oo Soomaali oo inta badan dadka Soomaaliga ah dilo af luqada si fiican u garanaya ay garan karaan macnaha ku fadhiyo maarta murtihaana sugan oo marka saxardiid la yiraahdo luqadi laga soo dhambalay meel kale laga soo erkeysan salahan ilmuhu markii xagga midabka magacu ku bixi jiray markuu ilmuhu madow yahay wiilkoo kale midalan waxa loo bixi jiray inqaas waxa loo bixin jiray qadiid waxa loo bixin jiray hurre waxa loo bixin jiray kuulow waxa loo bixin jiray haybe waxa loo bixin jiray meegaag magacadan oo dhan waxa way midab ay tilmaamayaan midabka ay tilmaamayaan waa midab madow gabdhaha kale ya yastur iyo dugule iyo yaa loo bixin jiray marka iyada dhinaca xogaa ee midabka madow marka la tilmaamayo
حاجة ويلكم مركو عسي هاي مثلا أو مقعو مذب لقصو ديريو عداوي فيل يا افتين ضيح حوش waxyaalaha samcnu waxa weeye yaa lagu magacaabi jiray meesha gabadha micnu waxa weeye cadeey iyo hilaa iyo faynuus iyo kaaha iyo nuurto iyo siraad iyo micnu waxa weeye loo bixin jiray waasna waa gabdhaha inta badan midabka lagu tilmaamay loo bixin jiray marka magacu markii milibsalan ilmuhu ama reerku geedi ku jiro ilmaha dhasha geedi hayaan kaynaan kunne ya waa bari fiidow guure waa magac xilliyeed وحلقة قف لصو كل من حلقة بعدنا حلقة مجح لوجا دقة حريت باك الروب لا كمدا وما إلى ذلك مجح أمريكا لما هو مجح صومالي باليرا لما أنتي سو مجح صومالي هو ملك لجمع كيني لجمع سو إرجيسون لقط كله لقط دي صومالية يا يوم وحوي الوصلي وحنا كوشرين كو حجين كو إن كشي كين إنه يجو بيجو حجين ويجو حجين وقيبته لبعض وقيبته لبعض waxaa soo bilowday oo magac meesha ugu badan yahay magac Soomaaligu meesha ugu badan yahay waa qaybtan hadda aan sheegnay qaybta hore way dabar go'day oo hadda lama baxo laakiin meesheeday tixgelin ku leedahay in lagu raad qoro oo magaca meesha uu ka soo jeeday magacyada aynu soo sheegnay ku abtirsaday marka insha Allah way dabar go'day laakiin hadda lama baxo qaybtan laftigeeda way jiraan laakiin hadda wuu sii yaraanaya magac Soomaaliga wuu sii yaraanaya waxaa bilowday marka qaybta saddexaad oo ah magac kitaabi wax la yiraahdo kitaabigu magacan kale wuxuu kaga duwanaa kan hooyada iyo aabaha iyo reerka qof kamid ah yaa bixin jiray wax kharaj oo lagu bixin jirayna ma jirin ama xilli la soo kulmay oo ilmahaas u dhashay xaaladahan soo tilmaanay waa lagu bixin jiray marka magacan magac kitaabigu wuxuu kaga duwan yahay labada magac ee kale isaga mararka qaarkood waxa ay dhici jirtay in safar loo galaba qof waalidka safar u galo inga maaha oo marka kharaj lagu siiyo la yiraahdo bal kitaabka cunuga micni waxa weeye igu magac bixiyo kitaabka micni waxa weeye magaca kitaabka iyo fiiri oo kharaj micni waxa sida lagu siiyo mararka qaarkoodna waxaa dhici jiray markuu magacu magac kitaab yahay in magacan cid ku horeysay ya sami looga raadiyo oo cunugaas iyo asaga markaa loogu magac daraa xiriir laga dhaxaysiiyo oo cunuga marka lagu sameeyo qofka meelaha qaarkood xataa kharaj buu iyo qofka lagu sameeyo yumni waxa uu bixin jiray marka magacyada magac kitaabiga la yiraahdo ee Soomaalida ku soo horeeyay waa magacyo xagga saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga magaciisa iyo haweenkii saxaabiyaadka ahaa ya micni waxa weeye iyo ambiyadii ya iyo ambiyada iyo malaa'igta qaarkood ayaa micni waxa magacaasi uu ka soo jeeday sidaasaa marka magac kitaabi loogu bixiyay مثلا محمد أحمد محمود حسن حسين علي عثمان يا سعد سعيد عبد الله يا مارتو حوي معيد النوع عاسى عبد الرزاق عبد الفتاح عبد الرزاق عبد الفتاح مقعد أسماء مني وحوي إلهي مارتو حوي كو مني وحوي لا السعودان مركب كا مني وحوي وما إلى ذلك waxaa la mid ah haweenka oo kale Faadimo Khadiija ya waxa weeye Aisha Maryama Batula Amina sidana mid waxa weeye Xaawo magacyada waaweyn ya mid waxa weeye diinta laga soo qaatay ya mid waxa weeye sidoo kale malaa'ikta Jibril iyo Mikail iyo walaal bixin inkastoo xoogaa ay Soomaalidu meelaha qaarkood ay taxriifin jirtay جبرائيل أو كلام مقعو أصلها هو جبرائيل لكن جبريل بيسمالدو تبادن ميكائيل مكاهيل بدا ميكائيلنا مكاهيل بيرادا حوغا مركا ويرا تحريفيان لكن وملائكته مقعيدودا يمحي وحوي يكسو قاتان سيدو كلا أنبياء آدم